ehel sunna anaga ahayn aniga kula hadlaa ku dhaawacmay walaalkayna lishaa ku dhintay haddana diyaar uma ihi haddana inaan mid kale qori qaado ilaa waxaan raadinayaa nabad inaan helno oo intii naga ba'day aan soo kabsano ilmaha agoonta inaan soo kicino ayaan raadinaynaa inaan helno dawladna deeqda oo nabada oo fiican anaguna aan kala shaqeyno dawladdu haddaan dadku la shaqeyn kaligeed ma shaqey karto bulshada keenta bulshada la shaqeysa min jeclaysiga hala dhaafo meel la isugu tago waxa laysan hala tafafbitiro hana la baxbaxsho laakiin inaan inta meel isugu tagno war dagaalamo waa ku dila waa ku garaaca meeba wax la yiraahdo urka haweenka hadday yartahay iyo daweynta aniga saas way ugu qaldanta waxaan dhihi midda kale reer galmudug rag iyo dumar waxay leeyihiin nabadna raadsha dawladna raadsha nabadna raadsha dawladna raadsha waxaan leeyahay dawladda iyo maamulada dhammaan galmudug annagu dawladaan u baahannahay shacab baalan baan nahay dawlad baan rabnaa nabadaan rabnaa baaq degdegaan rabnaa waxaan dawladda farayaa si degdega maamulka aad dhisi lahayd oo dhis ugu dhawaaq dadku waa daalan yihiin ha agajiidi hanana jiidin waan daalnay 30 sano iyo ayaan ku soo jirnay kana inagana ku dhamayn marka dawladda ama waxaan dawlad gobolka galmudug waxaan ugu baaqaya si degdega inay noogu dhisto maamul inay noogu dhisto dawlad goboleed inay noogu dhisto mid loo dhan yahay oo xor iyo xalaal waxaan maanta iskaga nimid dawladda hadalka ee gabdhaha galmudug sheeganaya ay ku dhahayaan ugu leelayaan ay leeyihiin galmudug baan nahay dagaalkaan ku baaqaynaa annagu dagaal ma ku baaqayno ururka haweenkuna dagaal ma ku baaqo nabadda ayaan ku baaqnaa haweenka dhahaya ee dagaal baan ku baaqayno waa haween baan walaalna u joogin wiilna u jooginin anagu dagaal ku baaqi mayno dawladda ayaan doonaynaa dawladda ayaana deeqda waxaan dawladahaynu nama deeqo 4 sano ayaan burbur iyo gucdur iyo dhibaato ku soo jirnay dawladda ayaa gucudurkii ka bixisay dadka dhahaya ee danaha gaar ah lena ayaga dawladda leeshiyo waxaan leeyahay ehel sunno dadka dhamaa wax sheeca ma ahan annaga sheeca ma ahin caasimada ku nool galmudugna sheeca ma ahan waa ehel sunno wal jameeco dadkii caasimadan wax xoreeyeen la dhahay dadka jooga dhama waa ehel sunno lama kala soocna waxaan leenahay culimada loogu yimid deegaankana hal la heshiiso dawladda sharciyada ku soo dhaweysay gaar ugu ma aan soo dhaweyn afka ehel sunna lagu soo dhaweeyay afka ehel sunna dawladdu ku timid waxaan leenahay haday wax ka tabanayaan hal la heshiin dagaal uma baahnin dib uma baahnin shicibka yaguna wax dagaal ah doonayna dawlad baan doonaynaa una yeelaynaa banaankana u taaganahay qabiil iyo qoysna ku dooni maynaa qaran baan ku doonaynaa waxaan leenahay dawladda waa idin hambalyeynaa geed dheer iyo geed dhowba waa idin soo dhaweynaynaa annaga shicibka in wax la su'aalo la yiraahdo maxaa u baahantiina ba loo baahan yahay dawladdu banaankeena inta u soo baxdo shicibka cod weydiisaa fiican annaga waxaan diyaar u nahay haddaan shicibkii caasimada dawlad baan u baahanahay banaankaan u taaganahay waa soo dhaweynaynaa leexleexamayno laabana mayno kana rijaymaysaan inaan annagu nidhano dawladda waa diidna war dawladaan doonaynaa dawlad baana deeqda caasimadu dawlad bay u baahan tahay dawladiina way joogtaa waxaan leenahay dib ha u laabanina meel kalena ha yagleelinina diyaar baan kugu nahay kalmadihii ku dhacayay sanatar dhagdheer iyo sanatar dhagay waa laba mas'uul oo dawladda federaalka soo dirsatay oo u soo dirsatay dalkeeda burburka iyo dhibaatada iyo iscunka iyo dib u dhac inay ka saaraan waxa lagu bartilmaameedsaday inay wax gaar yihiin inay musuq wataan inay dalka daacado ahayn taas waxaan leenahay raalli ka ahaada kunay ka jeer wax ma garataa idin tiri dadaan u fiirsan baa ka hadlay dadaan ogeyn waxa aad soo marteen ama waxa aad ku taalaan baa idin yiri marka waxaan leenahay xukuumadda dawladda federaalka sanatarada xildhibaanada gudoomiyaha cusub oo hadda baarlamaanka loo doortay intiinaba waxaan idin leenahay raalli ka ahaada kana biskooda hana u danqanina sababtoo ah dalkaad mas'uuliyadda u wadaan dadkaad u wadaan
wax badanna waa caqabadana idinka hor imaanayaan maadaama caqabadahaas badan idinka hor imaanayaan waxaan mar labaad mar saddexaad mar afraad leenahay raalli kaada burjees baan ka bixinaynaa annaguna isuma quurno mana nihin mana doonayno warkaasoo kale inuu idin soo maro ama dhagihiina ku dhaco laakiin nasiib wanaag dadkiini dad ka mid ayaa idinku yidhi intii kalena waa ka xunta oo cudur bay ka qabtaa oo aad bay uga jiran tahay taa intaasaan uga gudbayaa inta kale waxaan leenahay qofkii doonaya inaan mugdiga ku jirno waan diidnay qofkii raba galmudug inay dib u noqoto waan diidnay qofkii raba in Soomaaliya xumaato waan diidnay qofkii macaarada oo doonaya dalka inuu dhibaateeyo dawladda jilaafeeyo dadkaaga ka mid noqo dhabarkaagu waa muuqdaa indhahana ka qarsan mayna waa diidnay tafaraaq waa diidnay kahorimaad waa diidnay macaarad waa diidnay nin guri ku jira waa diidnay oo hadda cod soo saaray 12 madaxweynena waa diidnay mana doonayno mana dooni doono mana yeeli doono dalkaanu daacad buu rabaa dadkaanu dawlad buu rabaa waxaase diidan dul qarsoon dadkaanu dawlad buu rabaa dadkaanu dawlad buu rabaa waxaase diidan dul qarsoon waxaase diidan dul qarsoon waxaase diidan dul qarsoon dooni mayna anagu dul qarsoon ma doonayno waa diidno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa la ogaa galmudug waxa ay ahayd iyo waxa ay soo martay waa la ogaay maanta heerka ay taagan tahana waa la wada ogyahay qaasatan caasimada markaan u soo laabto sidii ay ahayd 4 sano hadda la soo dhaafay waa la wada ogaay horta waxaan u hambaleynayaa awalan dawladeena federaalka ah ee ugu horeeyo madaxweynaheena sharafta leh maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraheena qaymaha iyo qadarinta mudan xasan cali khayre wasiirka arrimaha gudaha wasiir sabriye waxaan ku xijinayaa wasiirka amniga intaasba mahada ka gaarto aad iyo aad mamaalkood wax la soo koobi kara ma ahan waxay noo joogeen oo maxay tahay dib u heshiisiin iyo maxay tahay amni soo celin iyo maxay tahay horumarkeena intaas ila daala dhacayeen waa galmudug waxa noqoto mucaaradka reer galmudugow oo maxay tahay federaalka noogu jira halkaan oo fadhiya luqaafada galmudug dawlad u sameynteedu u jooga waxaan leenahay walaayaalo wixii leedin idmada waa taqaaniin ayada ku koobnaa dadna waxba noo qabanaynin meeshan waxa way abaaraan soo marnay dagaalo qabiilan soo marnay dib u dhac badan baan soo marnay rafaad baan soo marnay maamul xumaan soo marnay intaasna nin ugu soo baxay ma jiro oo loo yimid ma jiro oo maal in mad lagu bixiyay ma jiro haddana waxa laga dhisi laayahay dawladda galmudug baa laga dhisi laayahay oo walba meel inta fariisto wuxuu leeyahay saasay tahay warqad hiblad soo saar war waxaas naga daaya dadna wax noo qabaneyn afkiina naga xirta